halgankii uluufiyo uluufiilka loo geliyey, halgankii adkaa ee dadkii kala ugaadhoobay, halgankii in badan oohin iyo uruga noo keenay, halgankii aroortii walbaba loo ajalay wiilal, halgankii xabsiga uumiga qaar u muran raacay, halgankii gabdhaha ugubkiiyo odaya loo laayay, halgankii ugaas iyo suldaan aan ilmana dhaafin, halgankii anfacsaday xinjiro uurka laga miiray, halgankii agoontii rajadu dib ugu aayaysay, halgankii ayaamaha barkood laga irdhoonayay, halgankii kuwii aan ilbixin eedda loo geliyey, halgankay ka eexdeen kuwii ehelka soo mooday, halgankii inkaaraha ku riday kii aan baday waayo, halgankii indheergaradku oonta cuni waayey, halgankii aqoon-yahan kiciyo ubaxa soo saaray, halgankii abaabulay bulshada idil ahaanteedba, halgankii awoodiyo itaal aan isugu geynay, halgankii abaar iyo diraac oonka laga saaray, halgankii ilaah loo baryay adhiga loo loogay, halgankii ijaabada alliya loo aqbalay daacad, halgankii ammaanada noqdiya lama ilaawaanka, halgankii qalbiga ootay ee uurka yaga waabtay, 40 sanad bay onalef eegga maraysaa, gobonnimo astaanteedu waa ururka jawxaad, aayaha shacbiga iyo aftida kama ilduufaan, mabdi'i la aas-aasay bay ka amba qaadaan, idihiiyo riyahan foofayaa waa isla adhigii, abtirkeenna Soomaali baa lagu aroorshaa, ummad qura ayaa nahay afkiya dhaqan abuurkeed, wax dad kala abaabulay bulshadan soo anfici waaye, ku adkaysta waa ururka qura ee la aaminay, ku adkaysta waa ururka qura ee la aaminay. waa 40 guuradii ururka onalef, waxaan ilaahay uga baryayaa inuu guusha makaniyo. 40 sano ayay maanta gaadhay, waa xilligii ilaahay subxaana wa tacaala ambiyada uu risaalada u dooran jiray da'deedii. hadda waxaan rajaynayaa in xukunka xornimada iyo xaqsoorka ummadaba ilaahay gacanta u geliyo. sanad guura wacan, sanadkan sanadkiisa in ilaahay nagu kulansiiyo badqab iyo caafimaad qab iyo guulo waaweyn oo la taaban karo.